horaan ugu soo qasaaray jacayl noloshayda qoomay namiimka qiyaamadiisa qaniya masiga daran horaan ugu soo qasaaray jacayl noloshayda qoomay namiimka qiyaamadiisa qaniya masiga daran intaynu gudaha u galin like saar naguna soo biir durbankeena codkaaga intiisii way baxdee dalaysane hasta sidaayay sididhe yadamashaadkeede samaaniyo nadahayndhe fanaanada Safiya Tusma ayaa waxa ay daawaha ka soo qaaday hees cusub iyadoo heeso badan ay qaada laakiin laba hees oo weerar toos ku ah xiriirkeedii hore. Safiya Tusma ayaa waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa iyadoo arooskeeduna dhawaan uu ka dhacay magaalada Jigjiga. Safiya Tusma ayaa sanadkan waxa uu ahay sanad xun dhanka kalena uu ahay sanad wanaagsan. Sanadka xun waxa uu ahay markii dhibaatadii la ogaayay ay ka qabsatay social media ayada iyo Cabdi Ciise. waxa kale uu sanadkan wanaagsan ugu noqday in arooskeeda uu ka dhacay isla sanadkan dabayaaqadiisa iyadoo sanadkan bilowgiisuna ay dhibaatadu ku dhacday sanadkan dabayaaqadiisana ay farxadu aheedo arooskeedii iyo 120keeda geela ah ay ku xayubsatay. Safiya Tusma waxay hore u sii tagtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxayna soo saartay heesa fara badan iyadoo mar walba ay hadashana dadku ay isdhax qaadayaan oo hadalhayn ay ka dhalanaysa baraha bulshada. sidoo kale Cabdi Ciise iyo Nimcad Degan ayaa iyaguna hees soo saaray arooska Safiya Tusma markii uu socday. Cabdi Ciise isaguna heeso waa uu soo saaray Safiya Tusma iyaduna dhankeeda ay heeso ka soo saartay. Labadooduna mar walba ay hees soo qaadaan waxay hadalhayn ka dhalata baraha bulshada oo dadku way isla dhax qaadaan iyadoo halkaasina ay dadku falanqeeyaan waxa loola jeedo xitaa haddii hees hore oo daadisa ama karbaasha aw qofkood qaado qofka kale lagu foorarinayo. lamaanaha Soomaalida ah ayaa waxa ay mar walba u nugul yihiin dhibaatooyinka dadka social media iyo commentiga iyadoo dadkii ay noqdeen maxkamad lagu kala goynayo labada qof markii ay wax isku dhacaan ama ay isguursadaan. waxaad sii ogeedeen in Leecata iyo xaaskiisa hore la yiri way iskugu dhaceen laakiin hadda dib ay u heshiiyeen oo u imaadeen. hase yeeshee waxay wararku sheegayaan in ayagu ay iskood u joojiyeen arrinkaasi oo ay kaga nasanayeen hadalhaynta tirada badan ee baraha bulshada laakiin hadda ayay u bilaabatay oo miiska loo soo fariistay saanfilayo. dadka caanka ah waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka dadkaasi especially markii ay soo baxday TikTok oo ay falanqayn aad u ballaaran ay ka dhalatay. Safiya Tusma ayaa waxa ay soo wadaa heeso iyadoo laba hees laga door xulan karo oo aad u kulul iyadoo isla markiina ay falanqayn bilaabatay heestii iyadoo si fiican aan u soo wada bixin. waxay ku soo kordhana barnaamijyadeena iyo tabinaheena kala ayaad ku maqli doontaan daawadayaal. abso hadal lagu qosliyo isi ayaa badigtee qof meeli qarqoratay intidii qalanjiyo bici badigte qof meeli qarqoratay sidii qalanjiyo bici miyuu u qalqaliya aramka miyuu dunta haweenka miyuu qasba warkaagani qursadi qalbiya furaha qoqoban ano qalbigaygu jiro warkaaga
qamamisa anarkuna igu fogiyey inaadi qamamisa miyay kula qala yartay anarkuna igu fogiyey inaadi qamamisa anarkuna igu fogiyey inaadi qamamisa miyay kula qala yartay ويلي هذا القطورة هذا قندي قوسيتي ومبا ملبكي قطوما أقر ملو البالدكتي تقوسو حقو ضري وتبجر عن لعوني نقبل قلب قوسيرا ويلي هذا القطورة هذا قندي قوسيتي ومبا ملبكي قطوما وتبجر أن لعوني مدبان قلب كوسيدا ورتا قرئي قد عيني يا غيب سمكارا أني عهد ورتا قرئي قد عيني يا غيب سمكارا أني عهد runtii waxba kuma qarin hadda adigu qosatana badugu qamama runtii waxba kuma qarin hadda adigu qosatana runtii waxba kuma qarin hadda adigu qosatana badugu qamama